Somaliland dhaqankeedii waa inay wadataa ay ku caanamaashay dhaqanka odayaasha markay Soomaaliyan laga soo ururiyo odayaal waaweyn ba halkan jooga marka la isu keeno walaalow inta la iskuro ee wixii la kala tabanayo la isu garaabay laga hadlo la isxaal mariyo hadday magdhow tahay hadday maxkamad tahay waxay tahay ba ay soo saaraan kadib loo yara loo dhiibo oo la sharciyeeyo kadib dawladdu la hordhigo waxba ka soo baxay laakiin taas hadday dheeraanayso aniga hadda tala kalaan hayaa haddii talada kale la qaadanayo referendum cod ha lagu kala baxo waqooyi kaligiis ha loo qaado referendum cod ha loo because dhalinyaradii waqooyi haafna halkan joogana way soo yaacayaan haafna halkaas joogana ka qayla iyagoon ogeyn siday wax u dhaceen oo wuxuu dhagaha loogaga shubayo waqooyi qof laga xigaa ma jiro anigu Faysal waxa jada baan reer Sheekh Madar bay dhalay reer suldaankaas ayay tahay Sultan Maxamed reerkiisa family-giisa asaasana Hargeysa waan ka naxayaa inay meel gaadhaan rabaa hadday Soomaalinimo tahayna inay intay centerka Afrika noqoto ay cirka ka tagtaan rabaa hadday goostaan inay go'aan oo sida ku tagaan anagoon taa jeclayn inay noolaadaan ay wax noqdaan baa rabaa soo ma garanaysid laakiin midnimada wax ka qiimo badan iyo Soomaalinimada ma jirto marka si waxana aanay muddo dheer u jiitay waxa la rabaa in referendum la qaado waqooyi kaligeeda laga qaado from Zayla ilaa Sanaag bari dadku marka ha codeeyaan ma midnimaad rabtaa mise goosasho taasaa lagu kala maxaa ku qiyaasi lahayn natiijada ka soo bixi karta haddii cod dadka shacabka loo qaado ma qiyaasi karo laakiin from dadka halkaan imaanaya iyo buuqa socda iyo wax xagga ka socda hadda ma aqaano marna idaacadu waa afdheeraan karaan oo dadka waa badin karaan oo laga yaabaa dadka aamusan inay badan yihiin laakiin maalintaa codaynaya laakiin tala kale oo maanta lagu kala bixi kara ma jira waqti hal la qabsado hal la codeeyo anuu taasaa qabaa waayahay qodobada shirka Jabuuti waxaa qayb ka ah qodob aad in badan looga hadlo oo qodobka isdhexgalka oo dhowr bari kadib ay soo saartay dawladda Jabuuti inkastoo aan marka hore la shaacin qodobkaasi muxuu kula muuqdaa وفعنا لها مدحويننا وان كلا أنا بويديي وان ويديني وحوي استحقلك إلا أقلادي هاي هنقول هركيس كل شيء أو فوسيس في حاجة عندنا إن هركيس لا يقف قاعدة بل يد بريو معها حق سياسة هذا كنتينا وإن سياسة أهان قان لوقاتها سيل لوقاتها مركا سياسين تهركيس ودلتي إيمانيسا وانت كودي بإيمانية ماشي كل شيء بإيمانية ماشي بس قفك هركيسة شوقة إذا بدأ فكتك يا باسبور صومالي وكل رفع أنا باسبور صومالي ستة شهادة أرضك كسر بحياة جامعة سكندري سكولك وأكون نلت شوقة مالو البسكولش بسكتك يا لبده وسارد واسكو حرية وحل اسكو بحي لي كمبيوتر وسارد عافيماتك واسكو حرية كوفي قال لقى قيلنا يلا ليه هاي كوفي محاك مقدش إنه هذا الهيسا وان اوغا وزارة عافيمادك كانت وان اوغا هاي ريبورتك ايغا سوسي هو كمبيوتر انت سامعت انا قد بنت انت سامع يعني وزارة عافيمادك الصومالية ويتن ها ورك عسبتالك halkaas ka kala helaan wax badan baa ka dhaxeeya security-ga wadanka iyo regionka immigration-ka dawaaba ka baasaboorka Hargeysa lagu sameeyay maxaa loo horaha in loo socdo fiican oo dadka runta loo sheego Soomaaliya waa isu yimaadeen cidina isma hayso ya Somaliland iyo Soomaaliya way isu yimaadeen cidina iskuma hayso hadda yaa inay isu yimaadeen reality-ga laga hadlo horaha loo socdo referendum ma la qaado barnaamijkan isdhexgalka ma u saamaxaya xildhibaanada gobolada waqooyi ee aan fursad hore u helin arrimo siyaasadeed inay deegaanadii maraan iyagoo aan siyaasad xambaarsanayn iyagu celitaas isdhexgalku inay Somaliland dib ugu laabtaan xildhibaanada gobolada waqooyi ka soo jeeda Muqdisho baarlamaan ka mid ah inta heshiisku dhacayaan waxaan jeclahay dadku inay family-gooda aan siyaasad gelin inta referendum la sameeyay ama la kala dhan loo kala dhacayo aniga Hargeysa waa jeclahay caawa hadii la yiraahdo Hargeysa waa ku furanta deerada horeysa raacaya family-gayga guur halkan ku dhashay halkan ku koray halkan abaayooda ku aasan yihiin gurigayga baa Hargeysa dhulkayga baa life-kayga oo dhan baa marka waxaan jeclahay xildhibaanada siyaasiyiinta ah inta meel ay gaadhayso arintu inaanay siyaasad ka gelin Hargeysa laakiin guryahoodii iyo family-goodii iyo qaar baa jira waalidiintood dhimanto soo eegi kari waaye bani aadanimada xagga laga eego ma fahamtay marka Soomaaliya Somaliland
horta guul weyn bay soo gaadheen ba hadday